halkan oo ah hosbitaalka weyn ee Rafiki General Hospital ee degmada Doobley ayaa lagu soo gabagabeeyay mashruucii saddexaad ee badqabka indhafiiqa bulshada kaas oo isugu jiray fiisito daaweyn iyo qalliin indhafiiqis ah kuwaas oo ay ka faa'iideysanayeen ku dhawaad 300 oo qof oo ka kala yimi degmada Doobley degmada Afmadow iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada labada degmo mashruucan ayaa waxaa fulinayay hosbitaalka Rafiki General Hospital ee ka howlgala degmada Doobley kaas oo ah hosbitaal si gaar ah loo leeyahay ayadoona ay qalliin ka sameynayeen Professor Maxamed Cadnaan Khan iyo sidoo kale Dr. Cabdisalaan Macruuf ugu horeyntii waxaa muuqbaahiyaha Jubbaland TV uga warbixiyay bulshadii ka faa'iideysatay qalliinada iyo la tacaalida indhaha badqabkooda iyadoo ay xusid mudan tahay in ay qalliinadani ay ahaayeen kuwa lacag la'aan ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Shaafi Budul Xuseen waxaan joogaa degmada Doobley isbitaalka Rafiki oo indhaha lagu qalayay il aan wax badan ka arkaynin baa yaa la igu qalay waxaad moodaa in waagan 15 jirka sidii aan haaba aragay igu soo noqotay dhaqaatiirta waxaan u mahadcelinayaa dhaqaatiirtii indhaha noo qashay noogu timid halka Allah idin barakeeyaan leenahay نوضع جرتا وفيعناهاي الحمد لله رب العالمين اسبطالك الرفيق كان جوغنا عندها وانولا فيق أرقنا وارديار الحمد لله إلهي بشرنا كرنا وحي نوكينا وحي نوفيقنا ومهدسيهين dhankiisa waxaa kelmadiisa qaatay Professor Maxamed Cadnaan Khan oo ahaa dhakhtarkii fuliyay qalliinka isagoona Allah uga mahadnaqay siduu ugu guuleeyay qalliinada indhaha ah ee uu ka fulinayay hosbitaalka weyn ee Rafiki General Hospital. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Adnan, consultant ophthalmologist, eye surgeon. Alhamdulillah, we are in Doobley for the last 3 days. And here nearly 300 patients approximately for the OPD, for the glasses, the medications and other assistance for the eye diseases whatsoever possible. And also alhamdulillah the major cataract surgeries, the glaucoma surgeries, approximately 100 are done here. And we have felt that most of the people in this area with the mature cataract, especially with bilateral, with both eyes, they didn't see due to the reason for the cataract. So alhamdulillah, this time we have tried our best, and also our notice came many patients with advanced glaucomas. With advanced glaucoma, when the optic nerve is weak or it's damaged completely, so it's nearly impossible to make the vision return back. But we have a choice for our future plan to get any screening program from our the donors, from our coordinators, to help the population, especially this area and also all over the Somalia, if possible, to do the glaucoma screening program. In that way, now we are planning and we are in coordination with our seniors so that the patient should know about his eye disease on time. If it's getting late, so the result for the treatment are getting more difficult. So alhamdulillah. ugu dambeyntii Dr. Cabdiqani Maxamed Sheikh Maxamed oo ah agaasimaha hosbitaalka Rafiki ayaa ka warbixiyay shaqada baaxadda leh ee uu hayo hosbitaalka Rafiki bulshada. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Subax wanaagsan dhamaan waxaan salaamayaa bulshada dhoweyn ee Doobley waxaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsaneed ay ka qayb qaateen barnaamijkii daqiiqaha alxamdulillah bukaano badan oo magaalada Doobley degan ilaa ay nawaaxigeeda way ka qayb qaateen ilaa hadda wali way socotaa daqiiqadii alxamdulillah dad badan oo aan qaliin u baahnayn oo daawo leh u baahnaa aragooda daawo soo xirnaa ayagana daawooyin la siiyay alla saa TV hore waa arki doontaan dad badan oo ka mahadcelin doona hore waa arki doontaan haddii la yiraahdo waxaan ka ugu mahadcelinayaa dhaqaatiirtii qaliinka fulisay iyo dhamaan intay bukaan oo ka soo qayb gashay fursad u heshay inay ka qayb galaan ay daqiiqada u imaadaan
aad iyo aad mahadsantiin dhamaantiin bulshada weyn ee Dobley ilaa in waxay ilaa ay gaaris Dobley meesha laga imaado insha Allah kulli waa mahadsantiin Sharmaarke Mahdi Cabdi Jubaland TV degmada Dobley gobolka Jubbada Hoose